isaga ayaa i daba orda. Haweeney aflaamta galmada samaysa oo weerar afka ah ku qaaday Lamine Yamal. Atirshada filimada galmada ee 29 jirka ah Claudia Bravel ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka la xiriirinaya Lamine Yamal. Arrintan ayaa soo ifbaxday kadib markii Yamal uu barnaamijka Tarde ee ka sheegay, aniga ayaa diiday inaan kulanno. Weligay ma arag iyada. Isagoo ku adkaystay, wax dumar ah ma galaan gurigayga sababta ah waxaan la noolahay hooyaday. Bravel ayaa si degan oo xushmad leh ugu jawaabtay. Tan iyo markii Lamine Yamal uu si furan uga hadlay arrintan, waxaan dareemay inay muhiim tahay inaan iftiimiyo aragtidayda si cad iyo si ixtiraam leh. Waxay sheegtay in Yamal uu ahaa qofkii horay u raadinayay xiriirkeeda. Isaga ayaa waqti badan geliyay si uu ula soo xiriiro. Wuxuu marar badan doonayay inaan is aragno. Waxaan isku aragnay xaflado dhowr ah. Si cad ayay u beenisay inay xiriir la yeelatay ilmo yar. Weligay ilmo yar xiriir lama yeelan xitaa kulan qorshaysan. Labadaba waxay ka dhawaajiyeen hal arrin. Maynan kulmin. Xiriir toos ahna ma dhicin. Si kastaba, Bravel waxay ka cabatay aflagaado dadweyne oo ay la kulantay. Fadlan hala joojiyo fariimaha aflagaadada ah iyo been abuurka. Dad ayaa ka dambeeya wararkan beenta ah. Waxaa jira dad ayay tiri. Fadlan inoo muujiya xushmad iyo degenaansho. Arrintan ayaa baraha bulshada kicisay iyadoo muujisay cadaadiska ay la kulmaan dadka caanka ah, gaar ahaan kuwa da'da yar. Dhinaca kalena, Florian Wirtz oo ugu dambeyn caddeeyay sababta ka dambeysa inuu Liverpool ku biiro. Xiddiga cusub ee Liverpool Florian Wirtz ayaa shaaca ka qaaday in horumarkiisa shakhsiyeed uu door weyn ka ciyaaray go'aankiisa uu ugu biiray kooxda Reds. Wirtz oo ka soo tegay Bayer Leverkusen kadib 5 sano iyo bar oo uu ka mid ahaa laf-dhabarta kooxda, waxa uu sheegay inuu u arko Liverpool meel uu si buuxda ugu kori karo jir ahaan iyo farsamo ahaan. Wirtz ayaa yidhi, tani waxay ahayd qodob weyn oo door ka ciyaaray sababaha aan u doortay Liverpool. Waxaan rabaa inaan ka sii fiicnaado heerkayga shakhsiyeed iyo midka jireed. Qof walba wuxuu og yahay in ciyaartooyda Liverpool ay yihiin mashiino aad u xoogan oo jirkooda aad u dhisan. Laakiin aniga ahaan waxaan taas u arkaa fursad aan ku horumari karo. Marka, waxaan dareemay in tani tahay meesha saxda ah ee aan ku sii kori karo. Wirtz wuxuu Liverpool ku soo biiray isagoo leh rikoor cajiib ah oo ah 197 kulan oo uu saftay, 57 gool iyo 64 caawin ayuu u sameeyay Leverkusen. Qadaraaskiisa cusub wuxuu furayaa cutub cusub oo mustaqbalkiisa ah. Halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhigga ciyaaraha ee aan uga hadlayo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta.